wararka ka imaanaya qaybo ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegayaan in qarax iyo duqeymo ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala maamulkaasi. haddii aynu ka hormarno magaalada Jowhar, wararka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in qarax uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada maamulka Hirshabelle. qaraxaasi oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan. halka loo yaqaano toddobada geed oo ku dhow hoteelka Nuurdoob oo dhowaan ay qarax ismiidaamina la beegsadeen ururka Al-Shabaab, hareerihiisana caan ay ku yihiin maqaaxyado ay fariistaan dadka deegaanka, ayaa la sheegay in qaraxa uu ka dhacay. isla markaana wararku waxay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaaray kaasi oo aan la ogeyn shakhsiga sida rasmiga ah u leh. sidoo kale waxa wararku ay tilmaamayaan in iminka ay socdaan gurmadyo aad u xoogan oo loo sameynayo dadka halkaasi dhaawacyada kala duwan ay ka soo gaareen. inkastoo laamaha ammaanka ilaa iyo iminka si rasmi ah aysan uga hadlin heerka ay gaarsiisan tahay khasaaraha qaraxaasi uu sababay. dhinaca kale, faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa duqeymo diyaaradaha dowladda Itoobiya ay maanta ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya, maamulka Hirshabellena hoos yimaada. duqeynta waxaa lagu soo waramayaa in lagu garaacay goobo loo malaynayo inay fariisimo ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. deegaanada duqeymaha lala beegsaday ayaa waxay kala yihiin Bacda, Qabno iyo Coomaad oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Matabaan iyo weliba Maxaas ee gobolka Hiiraan. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in joogta gantaalada ay ridayeen diyaaradaha ay maqlayeen, laakiin aysan rasmi u ogaan karin xaaladda jirta iyo khasaaraha heerka uu la egyahay. dowladda Itoobiya ayaa dhowaanahan aad loo hadalhayay inay qorshaysay in aag ay ka difaacdo dalkeeda ay ka samaysato qaybo ka mid a gobolka Hiiraan, Baay iyo Bakool iyo Gado, isla markaana weerarada uga imaanaya ururka Al-Shabaab ay isku dayayso inay ka hortagto.